السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawo maanta muuqaalkeena waxaynu ku baran doonaa course free ah ama course bilaash ah course kaasoo magaciisu uu yahay affiliate marketing dabcan waxaa jirta muuqaal ayaan hor aan soo geliyay oo markaa 4 qodob ee online ka lacag laga sameyn karo qaasatan Soomaali marka la joogo aan idin kula wadaagay dabcan laba qaab waa taqaanin waa YouTube iyo Facebook waa famous qaabka saddexaadna waa website oo badankiin waa isticmaalaan sidoo kale qaabkii afraad wuxuu ahaa affiliate marketing okay course-kan wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr xalqadood ama dhowr baarti sidoo kale course-kan waxa ku baran doontaa sida affiliate marketing lacag laga sameeyo ama looga shaqeysto okay waxaad isweydiinaysaa waa maxay affiliate marketing hadii aan sharaxaad yar aan kaaga bixiyo qofkii yaqaan uu yaqaana laakiin qofkii aan fahansanin hadii aan sharaxaad kooban kaaga bixiyo affiliate marketing waa tusaale adiga shakhsi ayaa tahay sidoo kale anina waxaan ahay company suuq marka suuqana waxa la yiraahdaa Somali Tutorial dabcan tusaale ayaan ku siinayaa ani alaabteeda in laga iibsado ayaan rabaa sidoo kale adina waxa rabtaa alaab aad suuq geyso ani marka alaabteeda waan soo qaadayaa waxaan keenayaa ama aan soo publish gareynayaa suuqa Somali Tutorials adi marka waxaad imaanaysaa suuqa Somali Tutorial kadibna alaabaha yaalo alaabtii marka aad dhehayso way soconaysaa ama alaabtan suuq ay leedahay ayaad qaadaysaa waxaad geenaysaa ama aad u bandhigaysaa dadweynaha haday noqoto Facebook and social media iyo website-yada aan idin baray iyo kuwa kale hadda aan idin bari rabo iyo sidoo kale website hadii aad leedahay inkastoo website-ka 100% oo muhiim u yahay kaana saacidi karo in markaas aad hesho sales okay alaabtii aad qaaday suuqa Somali Tutorials ka qaaday aan soo dhigo suuqa hadii uu linkigaas qaado qof uu ka gato ani waxaan ku siinayaa maadaama aan alaabta aan leeyahay ani alaabtii suuqa geysay soo iibisay waxaan ku siinayaa commission ama lacag shaah ah dabcan horta ina fahantaa rajeenaa waa suuq iyo qof alaab iska leh iyo adiga alaabta xayeysiinayo adi mar walba waxa tahay qofka alaabta promote gareynaa oo xayeysiinayo alaabta qof ama soo dhigtay qofkaas alaabtiisa xayeysiisay hadii linkiga laga gato lacag commission leedahay alaabaha isma lahan qaar $100 saaran tahay qaar $200 saaran tahay qaar $150 saaran tahay qaar 50 qaar 10 qaar 5 qaar 20 kulli alaabta adiga aad dooqanayso ayay ku xiran tahay affiliate marketing waxa uu yahay waa ku sharaxay number 2 affiliate marketing lacag ma laga sameyn karaa lacag waa laga sameyn karaa ana kuma dhahayo affiliate marketing maanta bilaaw birine lacag qaado kuma dhahayo laakiin waxaan ku sheegayaa affiliate marketing in lacag laga sameeyo aniga kula hadla aan ka sameeyay sidoo kale Soomaali fara badan ay ka sameeyeen dabcan waa taqaanaa affiliate marketing in alaab la xayeysiyo dabcan xayeysiin waxa u taqaanin combination social media ama YouTuberadan social media oo Soomaalida ah in markaas yani ay dhahaan maqaayadan Samway ama suuqan Samway ama company waxa saakilisa taas YouTube-kiisu ku xayeysiin waa affiliate marketing oo yani qaab kala ah kan laakiin aad waxa sameynaysaa website hadii aad leedahay website-ka ay ku xayeysiinaysaa sidoo kale hadii aan ku sheegay affiliate marketing waxa uu yahay in lacag laga sameyn karo aan ku sheegay okay marka affiliate marketing hadii aad lacag ka sameyso aad u baahan tahay laba shay waa in la imaadaa labada shay oo kala ah dadaal iyo dulqaad hadda ku sheega ha isku daalin hadii aad rabto in 2 maalin iyo 3 maalin iyo 4 maalin lacag ku sameyso neefa dadaal iyo dulqaad wax walba ay kaaga baahan yihiin xirfadihii aad ku sameyn lahayd iyo wadooyinkii amr lahayd iyo tricks-kii iyo wax walba tactics-kii aniga ku siinay iyadoo free ah laakiin dadaal iyo dulqaad waa in la imaadaa midda saddexaad website waa in aad leedahay inkastoo meelo badan aad ku xayeysiin karto laakiin website-ka waxay ka qaadanaysaa kaalin weyn ay ka qaadanaysaa sababtoo waa meel aad leedahay oo aad ku xayeysiinayso qofka markuu meesha soo booqdo tusaale hal product 10 product kala nooc xayeysiinaysaa hal product oo kamid ah oo qofka soo raacay website-kaagu yimid website-ka markuu yimid wuxuu arkay product-yaal kala meesha ku xayeysiinayso posts-kii fara badnaa oo mid ah kaga hadlayso waxa laga yaabaa midka oo soo raacay inuu rabin oo mid kale oo rabo meesha uu ka arko laakiin hadaa Facebook iskaga sheegayso no one can see aniga ku sheegay marka
website waa inaad leedahay waa very important. Soomaaliduna waxay dhahaan hal dhagax laba shambar ku dil. website-ka inaad dhanka AdSense lacag kaga sameyso, affiliate marketing lacag kaga sameyso. idna qof walba waa rajada uu leeyahay. Okay, marka dhowr xalqadood ayay ka koobnaa doontaa koorsadan bilaashka ah. xalqadan hadda aan duubayo ama yani qaybtan ugu horeyso waxaan kugu sharaxayaa affiliate marketing waxa uu yahay iyo wax lagaaga baahan yahay. dabcan haddii website aad leedahay waad leedahay, haddii aadan lahayn website markaas website affiliate marketing ah diyaarna u ah markaas affiliate marketing inaad kaga shaqeysato, speedkiisana oo high yahay oo qofkii markaas soo raaca linkiga promote gareynayso hore uu ka imaan doono, wax walbana ay u dhameystiran yihiin. haddii aad doonayso waad ka soo dalban kartaa Somali Tutorials, linkiga hoose ee WhatsApp-ka description saaran ayaad kala soo xiriiri kartaa. Okay, marka haddii aan ku sharaxay waxyaalaha kale oo lagaaga baahan yahay waxaa kamid ah affiliate marketing-ka muhiimadiisa waxay tahay ama tiirkiisa landing page wax loo. dabcan muuqaal ayaan ka sameyn doonaa inta aan course-ka bilaabin landing page waxa uu yahay sida loo sameysto. landing page-ku waa laba nooc, midna waa free oo Google-ka ku sameysan kartaa, midna waa lacag oo website sameeya jiro bish lacag ka qaadanaya. dabcan midka free-ga ah ayaa idin bari doonaa qof rabo inuu markaas yani lacag bixiyo wuu yiraahdaa ama ma jiro. haddaba marka yaanan ku dheeraan muuqaalka, haddii aad rabto course-kaas inaad ka faa'iideysato YouTube ku soo dhawow oo subscribe saaro, sidoo kalena gambaraalka furo si markaas bashqad walbo ama muuqaal walbo aan soo gelino ama markaas update walbo aan soo gelino aad uga faa'iideysato. dabcan course-ka part 2 waxaynu ka dhigi doonaa insha Allah sida loo sameeyo landing page ama markaas si liskaga diiwaangeliyo kambaniyasha markaas suuqmanka affiliate marketing laga helo. dabcan Clickbank Soomaaliya kama shaqeeyo, asxaabta inta ku xiran waxa laga yaabaa qaar inaysan Soomaaliya joogin, wadamo kale ay joogaan oo u shaqeynayo. laakiin inaga waxaan diiradda saari doonaa ama markaas si toos ah aan u target garin doonaa suuqa ka shaqeynaya Soomaaliya. dabcan dhalinyaro fara badan ay la soo xiriirtay kuwaasoo isku dayay dadaal sameeyay inkastoo muuqaalo ka xaqab tira oo markaas baahidooda tira ay YouTube ay ka waayeen, laakiin dadaalkooda markaas waxyaalo ay ka qaldan yihiin ama waxyaalo ay ka dhiman yihiin kuwaasna insha Allah waan ka xalismi doonaan. kuwii hadda raba inay bilaabaan insha Allah wada fudud oo taabsi ah aniga ayaa marsi doona. channelka waxaan saarnaa wadadii aan ku tagi lahayn 1k subscribe. haddii aad weli subscribe noo saarin waxaan kugu dhiirigelinayaa ama ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto, asxaabtaadana aad noogu share gareyso inta aad awoodana aad inoogu dirto muuqaalka. waayahay, waxaan kuu sheegay in website aad u baahan tahay, haddii aadan lahayn aad soo dalban karto. waxaan kuu sheegay affiliate marketing in lacag laga sameyn karo. sidoo kale waxaan kuu sheegay affiliate marketing in lacag laga sameeyo. sidoo kale affiliate marketing waxa uu yahay waan ku sharaxay. sidoo kale waxa lagaaga baahan yahay dulqaad iyo dadaal waan ku sheegay. intaas haddii ay diyaar ka tahay course-kan waa bilaaban kartaa, waana dhameysan kartaa, waana free, hal shilin kaaga bixi doona insha Allah. okay, ugu dambeyn waxaan idin leeyahay tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.